Sidee loo sameeyaa muuqaal noocan ah? anti baan kugu xidhaya waa qof aan nolosha ka doorbidataa tiri adaa ku doortay see had ugu xidhi kartaa. Waxaa laga yaabaa marar badan inaad ku aragtay TikTok-ga aadna isweydiisay qaabka loo sameeyo. Aadna weydiisay qofka jaahil biyo wadada loo maro ama qaabka loo sameeyo. Balse maanta ani waxaan rabaa inaan ku baro qaabka loo sameeyo. Weliba adigoo adeegsanaya taleefankaaga iyo appka CapCut. Haddii tahay markii ku horeysay aadna soo booqato fadlan channelka subscribe saar oo noqo asxaabta wanaagsan ee noo xiran. Muuqaalkana ha naga ilaawin like waa inoo muhiim. Marka hore waxaa soo furtaa CapCut. Waxaad ka sii doortaa new project. Markaad halkan joogto ugu horeyn waxaa soo qaadaa sawirka ama muuqaalka aad rabto. Sawirkan soo qaado tusaale ahaan. Marka aad sawirka saan soo qaadato waxaad ka sii doorataa overlay meesha ay ku qoran tahay. Kadibna soo qaado muuqaalkii. Marka uu muuqaalka saan yahay hoogaa gadaal u riix muuqaalka yaray kadibna position-ka aad rabto dhig. Kadibna waxaad halkan ka raadisaa meel ay ku qoran tahay mask. Waxaadna ka sii doorataa qaybtan. Marka uu inta joogo waxaa halkan kaaga muuqda 3 calaamadood. Mid hoos ah, mid kor iyo mid gees ah. Aan ku hormarino mid hoos ah waxay video ku furtaa blur ama shucaac hoogaa mugdi ah. Labada kale waxaad ku toosisan kartaa cabirka videoga oo position-ka aad rabto ayaa geysan kartaa. Marka asaan u sameyso sawirka cabirkiisa halkaad rabto ayaa geyn kartaa, weyneysiin kartaa, haddii rabtana waa iska dhaafi kartaa. Ani hadda videogan ma rabo inaan weyneeyo waayo adi ayaan wax kugu baraa kaliya. Laakiin adi meeshaad rabto ayaa geysan kartaa. Saa u jeedid muuqaalkii hadda waan sameynay. Waxaan rajeynayaa wax inaad iga faa'iiday. Haddii aad halkan il soo gaartay fadlan waa inoo muhiim channelka subscribe saar muuqaalkana like saar.